السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وضع الشيكيسي كسو دواد حلقة كوبات وضع الشيكيسي موضوع أنا كسو كرية وغانشو من نقن دون الشيكة معنا لأنا شيكة برلي أما فديكو درير وحان اسكو دي إنان توشكا كو قبتو وحدي رجالين كرو دالين رضا وحنا اي كفايدة يان كسو دواد قيبت كوبات وضع الشيكيسي dhalinyarada caalamka maanta inta badan waxay u jeesteen waxa lagu magacaabo freelancer shaqooyin xor ah ayagay u madax banaan yihiin shaqooyin ayaga ay sameeyeen shaqo ay naftooda u shaqeeyaan gaar ahaan dhinaca internetka shaqooyinka laba ayaa loo kala qaybiyaa shaqo xor ah iyo mid adoonsi ah waxaa laga yaabaa in cabiritaankaas aad la yaabto adoonsi qof shaqaysidee adoonsi loogu tilmaami karaa laakiin waan u imaan doonaa wax yar sug waayadii hore dadku waxay ahaayeen laba qaybood dad la adoonsado oo cidda adoonsato u shaqayso beeraha u fasho guriga u nadiifiso kadibna lacag mushaar ahaan la siiyo beddelka hawshaas ay qabteen iyo dad xor ah ayaga shaqaysto aanan cid kale u shaqaynin shaqooyinkan aan naqaan maanta ee hebel shirkad ayuu u shaqeeyaa heblaayo shaqo ayay heshay waqti aanan fogeyn ayuu caalamka ku soo kordhay arrinkan laakiin maanta magacii adoonsiga ahaa ayaa loo bixiyey shaqo alwadiifa job in qofku u shaqeeyo shirkad ama qof gooni ah ama xitaa shaqo dowladeed kadibna bisha markay dhammaato loo tuuro mushaar aanan u qalmin waqtigii ka baxay dadaalkii uu sameeyey kallahaadii mushaar aanu ku filnayn bisha 10 markay tahayn uu bilaabo waxay deymiya qofka shaqaalaha ah noloshiisu sidaas ayuu ugu wareegan xalaqa aanan dhammaanaynin dayn fikir faqri aanan laga baxaynin hamigiisana uu noqonayo mushaarkii maxaa ka dhiman goormuu soo degi doonaa ilaa qofku uu isu bedelo inuu adoon u noqdo sugitaanka mushaarka billaha arrinkaas xitaa wuxuu ka jiraa wadamada adduunka ugu dhaqaalaha badan galbeedka waxaa loo sameeyay bunuug ra'simaaliyadda dhuuqda dhiigga bini'aadamka qofka uu u shaqeynaya deyn inuu iska bixiyo weligiis uu deyn iska bixiyo ribada xitaa arrinkaas wuxuu ka jiraa sidoo kale wadamada khaliijka lagu sheegay inay yihiin qani dadkooda intooda badan qof khaliiji waa yaryahay haddaad wadooyinka Abu Dhabi Doha Riyadh Kuwait haddii aad socoto ood qof khaliiji weydiiso deyn ma lagugu leeyahay qof aanan deyn lagu lahayn ma helaysid dhammaantood deyn ayaa lagu wada leeyahay xitaa ayagaas faqri aanan caadayn ay ku jiraan khaliijka gaar ahaan shucuubta waxaa ka jira qaninimo been ah haddii qofka khaliijiga hal bil mushaarka ka istaago bannaanka ayuu ku soo dhici annaga kor markaan ka aragno guryo dhaadheer oo qurux badan gawaari laakiin gudaha markaad geshid waxaa ka jira faqri aanan caadi ahayn guriga deyn ayaa loogu dhisay gaariga deyn ayuu ku soo qaatay waxaa ku socda qof kastoo khaliiji bil kasta waxay ku magacaabaan aqsaad shahriya oo ah inuu iska gudo deyn waa qayb ka mid ah nidaamka ra'simaaliga iyo bunuugta ribada ee dhuuqdo dhiigga bini'aadamka waliba Soomaalida ku nool khaliijka xaalkooda wuu ka xun yahay wuuna ka sii daran yahay 100% muwaadiniintaas khaliijka sababtaas uu u shaqeynayo shaqo aanan ka bidnayn biil markuu gababo 60 sano gaaro 70 sano gaaro yaa xal leeyahay tawakkal ala Allah wadankaada ku laabo waad aragteen dad waaweyn oo Soomaali ah oo khaliijka ka imaaday kuwa galbeedka Yurub ama Mareykan ku nool waxay uga duwan yihiin Soomaalida khaliij ku nool in markii ay gaboobaan ugu yaraan ay meesha sii deganaan karaan laakiin khaliijka hadaad gabowdo oodan shaqo aadan haynin waxa mustaxiil inaad ku sii noolaato waa inuu qofka fiilka noqdaa laakiin dadkaas hadii ugu yaraan ganacsi lahaan lahaayeen xaalkooda halkaas ma gaari lahayn nidaamka caalamka hogaaminaya maanta dhaqaale ahaan hadafkiisu waa in bani aadamku ku noolaado adoonsi iyo faqri dhibaatada dhaqaale ee caalamka ku dhufatay wixii ka bilowday 2008 waxay sababtay in kumanaan iyo waliba malaayiin Mareykan shaqo waayaan taasoo ka dhigan in ayna awoodin inay iska bixiyaan deynta guriga ay degan yihiin kadibna waxaa dhacday in guryaha laga bixiyo wadooyinkana ku soo dhacaan wax ay haystaan malahan waa Mareykan malaayiin
ninkan shaqada laga ceyriyay shalayto markii uu labistay uu sii kala hayay wuxuu aaminsanaa inuu yahay nin shaqeeyo oo nadiif ah laakiin wuxuu ku jiray adoonsi sababtoo shaqadu waa adoonsi waad aragtaan Soomaalida qurbaa xaalkooda sida uu yahay siday u ordayaan u sii kala hayaan waxba iyagoon haynin ayaa saacad gabowga ku dhici istaag 60 sano ayaad gaartay gadaal u fiiri waqtigaad soo cuntay waxna ma haysid waxna maad xaqiijinin noloshaadu waxaad ku dhamaysatay orod iyo inaad shaqo aanan waxba aadan ka faa'iideynin aad subaxdeen u kala hado habeenkina adoo daalanaad imaado aakhirey adduun waxna kala aadan haynin waxna uusan xaqiijinin murug iyo dayn waxaanan ahayn noloshiisa aysan ku soo biirin laakiin waxaa jira dad fara ku tirisa oo fahmay meesha ay lacagta jiifto waa ganacsiga noocuu doona ayuu noqon karaa hadduu doono ganacsi xagga internetka ganacsi kale oo caadi ah rasuulka sallallahu alayhi wasallam waa kii ammaanayay ganacsiga yirina barakada iyo risqiga wuxuu ku jiraaba ganacsiga aslan waa arrin la yaqaan taariikhda bani aadamka maalintii nabi aadam dhulka la keenay ilaa hadda waxaa soo maray malaayiin qof dad qani ah haddaad akhrisid taariikhdooda ma jira hal qof oo ku noqday qani shaqo uu qof kale u qabtay nin shaqaale ah oo noqday qani taas ma jirtaba aslan qof shaqaale ah oo qani noqday arrinkaas waaba arrin aanan dhacaynin dab iyo biyo ay isku yihiin qof shaqeeyo u shaqeeyo meel shirkad ama xukuumad xitaa qanina noqday arrinkaas mustaxiil adduunka kama helaysid waxaan ula jeedaa in uu noqdo qofka shaqaale shirkad ama dawlad ama xitaa meel kale oo shaqeeyo arrinkaas waa mustaxiil inaad ku noqoto qof hanti leh waxaad isweydiisaa Bill Gates ninka shakhsi ahaan maanta adduunka ugu qanisan sidoo ku helay lacagtaas inuu shaqaale ahaa maya inuu xukuumadda Mareykanka xafiis u fadhiyay maya wuxuu ku gaaray shaqo asaga uu qabsaday shaqo asaga uu leeyahay horumarinta barnaamijyada kombiyuutarada dhaqaajiyo inkastoo reerka asaga uu ka dhashay ay ahaayeen reer aristaqraati ah oo siyaasadda ku jiro bunuugta ku jiro laakiin Bill Gates ma dhihin aaba adeer hebel ila hadal adeer George ila hadal gabadha in adeertay duqa John oo dhalay ila hadal inay shaqo ii raadiso la arrinkaas dhan ma sameeynin maskaxdiisa ayuu miiray kadibna Microsoft ayuu aasaasay waad aragtaan maanteeto halkiis Steve Jobs aasaasay shirkadda Apple ee Mareykanka shirkad ka lacag badan wadamo badan lacagta ay haysata shirkadaas iyo qiimaha ay faa'iido wadamo badan ay ka lacag badan tahay Afrikaan iyo caalam kale ba isku jiro waxa unkay hal nin fiiri siday ahaayeen bilowgii rafaad iyo daal ayaa ka muuqda wajiyadooda Mareykanka ayay joogeen oo xilligaas waliba muhaajiriinta ay ku yaraayeen meel kastana xilligaas shaqo taalay laakiin waa khiyaano weyn in qofku aqbalo shaqo cid kale inuu u shaqeeyo gurigan idin muuqdo ayuu ku soo barbaaray Steve Jobs kana bilaabay unkida shirkadda Apple ee maanta trilyoonadka lacagta leh waxay ka bilaabatay shirkadaas qol yar oo ka mid ah gurigan waliba qaybtan bidixda jirto ee garaashka gawaarida la istaajiyo halkaas uu ka shaqeyn jiray habeen iyo maalin maskaxdiisa ku meeri jiray Steve Jobs Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu wuxuu ka mid ahaa dadka ugu lacagta badan uguna qanisan jasiiradda Carabta rasuulka iyo saxaabada Madiina ayay u hijroodeen ayagoo ka soo cararay dhibaatada kufaar Quraysh ee Makka kadibna markii ay Madiina gaareen xaalku wuxuu ahaa sidaan rag Makka ka soo cararay oo lagu magacaabo muhaajiriin wax hanti aan lahayn waxna aan haysanin iyo dadkii magaalada deganaa ee soo dhaweeyay una gargaaray oo lagu magacaabo gargaarayaal ansaar muhaajiriintu waxba ma aysan haysanin wax hanti ma aysan haysanin rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa qof ilaahay xikmad iyo aqli iyo xalin mashaakilka siiyay sidii mashaakilka loo xaliyo rasuulka ilbriqsi kuma qaadan jirin si arrinkaas looga hortago dadkan soo hijrooday ee aan waxba haysanin
wuxuu bilaabay in uu walaaleeyo qof kastoo muhaajira uu la walaaleeyo qof ansaari ah. hebel muhaajir waxaad walaal la tahay hebel oo ansaari ah, waxuu cunayo la cun, la noolow, guriguu degan yihiin la deg. xaalku waa sidaas. cabdiraxmaan bin cawf oo ka mid ahaa muhaajiriintii ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam la walaaleeyey nin ansaari lagu magacaabo sacad bin rabiic. sacad wuxuu u soo bandhigay cabdiraxmaan inuu la wadaago waxa uu haysto, laakiin ibnu cawf wuxuu ku jawaabay, allah kuu barakeeyo waxa aad haysato ee suuqa i tus fadlan sacad walaal. suuqii ayaa la tusay cabdiraxmaan bin cawf, kadibna wuxuu bilaabay ganacsi iibin iyo soo iibin. muddo kadib cabdiraxmaan bin cawf wuxuu noqday ragga ugu qanisan jasiiradda carabta oo dhan. maalin ayay dadka madiina bannaanka u soo baxeen ayagoo la yaaban kolonyo ka kooban 700 oo geel ah oo dusha ku wada ganacsi kana imaaday dhulka shaam. yaa iskale hantidan saan u badan? waxaa iskale cabdiraxmaan bin cawf. ka waran maanta 700 oo gaari xamuul hanti ay wadaan, hal ganacsi weliba, maasha allah. laakiin cabdiraxmaan bin cawf ma ahaynin addoon u ah lacag iyo maal, wuxuu ahaa insaan xor ah, qof madax bannaan. waddada ilaah ayuu ku bixin jiray, wuu sadaqaysan jiray, waana sida ugu wanaagsan ee loo sameeyo hanti, inaadan addoon u noqonin lacag iyo adduun. waxaa la sheegaa maanta hantida adduunka kala bar inay ku jirta 1% dadka caalamka. intooda badan waa dad kale ganacsiga iyo shirkadaha waaweyn, halka malaayiin qof si addoonnimaha ugu shaqeeyaan 1% halkaas. shaqaale ku jira xaalad adag, ku shaqeeya duruufo qallafsan oo caafimaadkooda iyo naftooda khatar ku ah. halka hantiilayaasha ay u shaqeeyaan kolba meel u dalxiisaan, ku raaxaystaan yuquud iyo maraakiib loogu talagalay in lagu raaxaysto. laakiin ilaahay bini aadamka caqliga wuu u sima, kanna wuu fikiray in uu xor noqdo loo shaqeeyo, kanna hamigiisa wuxuu noqday in uu asaga u shaqeeyo qofkan.